أهلا بكم بسم الله ومركز لي برنامج كني فلسفة يا مرتدى نرشة ما أنت نكسر وهذا برنامج كني مركز ما توحنا كهذا لنا الشيخ الرئيس ابن سينا عبد الله ابن الحسين ابن العلي وهانين أفغانيا هساها تاريخ ذا ميلوين كجلي لونه يقانو ابن سينا ابن سينا إن البديل إنه مقشين بالغيا با وانا فيلسوف مرن بدن هساها عن بدي سكوباد ودختركي وقت قدرة la barto bugaagtiisa waana dhakhtar aad u sameeyay taariikhda cilmiga dhakhtarnimada ee adduunka haddaba in yaro kooban aynu ku noqono dhalashadiisii filasuufka loo yaqaano sheekh al-ra'iis ibn sina kaasi oo ahaa filosoofiyada islaamka midkii kuwii ugu waaweynaa waxaa ku dhashay family muslimiin ah oo ka tirsan daa'ifada ismaaciiliyiinta shiici oo ayuu ahaa aabihii ismaaciiliya waxaanu ku barbaaray wadamadaasi خراسان هساعته كدب وحوسه قد بينه يمد بغداد يرلك مسلمين تا هساعته كهر أيوكو عم بحين النقطة دختر لا ضو فريستو علمي دختر لماذا كاسي وعاد عم بحين داير يسقو شري ساو بيضا يو قرأ كتاب كانوا قانون الدب كاسي أو نقطة كتاب بدأ هو وين تاريخ ده لو نقطة أما مراجع ده أما ريفرنس كون نقطة مكتبة ده أما جامعة ده قلبيت كوردن مدة كبدن أفر بقول إلا شن بقول أصلا سأوجد ابن سينا الشيخ الرئيس مورهين كتاب كيساسي قانون الدب أوكري وحولها بوجاك بدن أو كقري دينع فلسفة سأوجد أيولها كتاب كلو يقان الشفاء كتاب كلو يقان عيون الحكمة كتاب ترى بدن أو كقري نفطة يشيكوي ترى بدن أو كشيكيبة قصة نفطة هساعته ابن سينا وحيابي يقول بدنا وكهذا وحكم ده dhakhtarnimada saynu soo aragnay iminka dhakhtarnimada uu ka hadlayna waxa uu soo bandhigay ama uu soo turjumay cudurro cusub sida aynu arki karno cudurka xasaasiyadda wuxuu ahaa raggii ugu horreeyay ee qeexa ama ninkii ugu horreeyay ee qeexa kuna qeexa inuu yahay cudur ka maran shadaadiinta iyo jinka iyo waxaasi aanay ku lahayn wax xidhiidha ee uu yahay cudur xasaasiyada oo jirka ku dhaca oo noocaas waxa kale oo uu ka xoreeyay caqliga inay فرنولج عذر ليدا أما إنه قف وعي جوايا قاب كأنه قلنا سين تهاي قاب علمية لا عضين كرم سيدا كلو حاو اعتمادي أما وشجع إن أي تهاي إنه تجربة نشجع مركز كنت جابينه واح أما حيوان أما بني آدم كذب أينو قرن كرنا حقيقة ده ربط شيء قاسي ضبطنا مركز أينو شيء قاسي قاعدين كرنا أو أينو كدغي karna shay lagu dhaqmo markasta hasaate shay la iska yiri oo hadala ma aha wax aynu ku dhaqmi karno markasta saas ayaanu aqoonsaday in dhaqaatiirtu ay u daba fadhiistaan macallimiintoodii cilmiga hasaate ka sii gudbaan oo ay keenaan iyaguna shay cusub taasi oo cilmiga lagu socday imika taasi oo madrasadaas oo ka bartay madrasadii uu ka tirsanaa isagoo ama macallinkiisii Orosto way wuxuu ahaa nimanka ku ay raadisay falsafada Orosto iyo falsafada Farabiba kaasi oo sheegay in cilmiga dhakhtarnimadu yahay cilmi yar oo basiida hase ahaatee cilmiga falsafada uu 40 jeer akhriyay kitaabka metaphysics-ka ee filosofka Orosto hase ahaatee aan u fahmin ilaa markuu akhriyay kitaabka isaguna ma waraaya dabiiciyada ama metaphysics-ka ama dabiicada al-Farabi hadaba filosofka Ibn Sina waxaan ugu bixiyay sheekh ra'iis maadaama uu ka tirsanaa markaasi dawladda ama waxa madax ama nooc doontaba ahaata ama laqabkaasi bilowgiisiiba uu raacay sida la yiri asaxate sheekh filosofka sheekh ra'iis ama filosof ibn sina hadad maqashaana markasta sheekh ra'iis ama sheekh al-akbar wa ibn al-arabi muhiddin ibn al-arabi suufiyasha sheekhada ugu waaweyna حداد مقشو أبو حجة الإسلام وأبو حامد الغزالي وإنه فلسفة دي سجاري دونه فلسفة دي وكسور جيدو حداد مقشي شيخ الإسلام وابن تيمية مولانا وجلال الدين الرومي ساعو قيل لقبيات أسوحي عين لقبيو جراء وقت يدي هوراء إسلامك لو نبحي جري ساعو قيل أنه نبحي الشيخي مدحدا ساويد شيخ مدحدا هي وحلها أفكار mararka qaar Orosti wada noqon kara mararka qaar afkaar afladooniya hase ahaatee qaab isu yargeyna oo ka yar duwan u lahaa hase ahaatee
madrasada lagu yaqaan ama qaabka uu fakari jiray wuxuu ahaa qaabka rastiga kaasi oo uu sheegay in ilaahay uu ku fakaro naftiisa waayo wuxuu aaminay shayga ugu fiican ee laga fakaraa inay tahay inuu yahay fakarka shayga ugu fiican la qabto koonkan la jooga waa fakarka fakarka ugu fiican waa fakarka lagu fakaro daata ama nafta ugu fiican ilaahay inay tahay inuu ka fakaraa ama shayga ugu fiican inuu ka fakaraa waa naftiisa saa awgeed xaajaadka yaryar basiidka inagu qabanayno nolosheena hormahayo hase ahaatee waa arrin ay diidayaan culimo badan oo muslimiini kaasi oo sheegaya in ilaahay kuwaas oo sheegay in ilaahay uu og yahay shay kasta ha yaraado ama ha weynaado amaba sida qur-aankaba uu ilaahay ku sheegayo in shay kasta uu og yahay oo wax ka qarsoonay aanay jirin wax kastana ka warhayo wax kastana isagu maamulo koonkan ay gacantiisa ku jiro hase ahaatee ibnu sina wuxuu arkaa inaanu muhiim ahayn inuu ku mashquulo ilaahay koonkan ama uu ka fakaro taasi waa afkaarta filosofiyada kuwaas oo daliil adeegsanaya ama xujaj taasina u baahan tahay niqaashyo ka dhaadheer kuwan aynu iminka ku jirno hase ahaatee waxaynu fahmi karnaa un falsafada ibnu sina waxa weeyaan falsafad muhiim u ah ama gundi u ah xadaarada islaamka saa awgeed aynu u baahannahay markaynu u nisbo sheeganayna xadaarada islaamka inaynu fahanno xadaaradaasi raggoodii wax soo kordhiyey waxay soo kordhiyeen kitaabkaasi iminka qaanuunu dibbi 400-500 sannadood ka ahaa madaxda waxa soo gudbiyey ibnu sina waxaanu soo gudbiyey xadaarada bini'aadanka uu soo qadimay kitaabkaasi waqti siraacaad iyo islayn iyo khilaafaad ay ka dhex jireen dowladihii muslimiinta dowladii cabaasiyiintu sii baabaysay dowladiisii faatimiyiintu ay dhalanayeen waana waqtigaasi ayuu isagoo had wasiira mashaakiladaasoo dhama haystaan dhakhtar ah dadaalka ka muuqda haddana ayuu ku qoray in ka badan 200 oo buug oo ay ku kala tageen haatan qaar la waayay iyo qaar la hayo iyo la qoray iyo qaar madxafyada adduunka kala yaala saawgeed ayuu ku saameeyay taariikhda fikirka bini'aadanka ilaa haatan uu leeyahay iqtibaasaad iyo waxyaabo laga soo qabsado ilaa haatan uu leeyahay ixtiraamkiisa oo ka midan yahay jaamacadaha galbeedka iyo jaamacadaha muslimiintaba ibnu sina sheekhu ra'iis suudanaba ha ahaadee muhiimadda ugu weyn uu soo kordhiyay waxa weeyaan inuu yahay mid ka mid ah ragga ku soo kordhiyay taariikhda bini'aadanka shay muhiima shaygaasi waa shay falsafada oo muhiima taariikhda oo muhiima bini'aadanka oo muhiima cilmiga dhakhtarnimada iyo cilmiga dibbiga waxaanu ka baran karnaa dadaalka uu lahaa inuu u dhabar adeego in wax la qoro oo la taariikheeyo oo laga tago waxaad garanaysaa aqoonteeda inay tahay shay muhiima laakiin waxa ka muhiimsan ma intaanad waxba qorin inaad akhrido si aad u qorto wax laga daba akhriyo muddo laga joogo iminka 1000 sanadood kadib maanta aynu u xusayno ibnu sina oo aynu arkayno wanaaga uu soo kordhiyay taariikhda bini'aadanka iyo afkaartiisa xataa haddaynu ka soo horjeesano waxaan arki karnaa inay leedahay macno aynu kaga soo horjeesano. Waan salaamaya. Assalaamu calaykum iyo xalqad dambe.